السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومانتي مقال عصب ولاشين كوسر سعيد dad markii koowaad aragti tahay fadlan subscribe leh maanta iyo waxaan ku leeyahay aragti cusub si caadi noo ahayd. maanta waxaan noo wadaa reaction kaas oo ku saabsan gabadh leedahay Farxiyo Cubsiye. waxaa jira erayo aan xaqiiqada mar walba ka fog oo ay maaragtay dadka mulxidiinta ama dadka maaragtay alla koodka ama dadka alla diidka ay qalbiga ku dhistaan marka maaragtay laga soo horjeedsado ama ay doonayaan inay ka iibgeeyaan afkaartooda leexsanaya la diidnimada. dib ma leh qof kasta maaragtay ummad kasto leexsan waxba jirta maaragtay niyada ku dhisato oo zuhri fil qawli qururan hadalkii mid yara macaan oo ay dadka maaragtay la yaab ma laha, laakiin waxa la yaab leh marka qof muslim oo laa ilaaha illa allah leh uu noqdo qof suuq keenaya afkaartaas ama ereyadaas ama hadalladaas. waxaan diin uma baahnid to do the right thing. diin uma baahnid inaad wanaag samaysid. dad badan baa saa u gariiray marka waa maxay wanaagu haddii aanu jirin miqyaas bini'aadan ka baxsan oo maaragtay ay miqyaas ka dhigtaan? waa maxay wanaagu? dadba wanaag waxay u arkaan in ilmo yar oo ku jira in uurka lagu dilo oo maaragtay marba xubnihiisa bar la soo jaro. dadba wanaaga soo arka dadba wanaaga u arka inuu maaragtay nin kala hungureeyo. dadba wanaaga u arka inuu sinaysto oo ruux ka raaliya uu la sinaysto. qofba wanaag u arka inuu qof ka daciifa uu dili karo waxna ka qaadi karo. marka maxaa miqyaas u ah bini'aadanka haddii aad diinta looma baahna? maxaan miqyaas siin lahayd si ay maaragtay ay wanaag u sameeyaan? sabab maxay wanaagu? laana cid walba wanaag wax gaar ah u taqaana. miyaanay kula ahayn inaad bad cagaha kula jirtid oo maaragtay sheekooyinkaagii malaawaalka aad ka baraysan jirtay ay fiican tahay inaad iskaga noqotid oo annagana maaragtay sheekooyinkaaga aad noogu celisid dadka maaragtay khayaalka jeclaysa ka dhageystaan. laakiin inaad arrimo caqiido iyo diin aad dhex gasho waxyaata kaba weyn baad gashata. miyaanay kula ahayn? sheeko yar baan idiin sheegayaa. laba qof baa jira, for example there are two people. laba nin oo walaala ama laba nin iyo naag oo laba qof. labadaa qof nintaa jira bay for example u shaqeeyaan, very wealthy ah, meel walba kamaraday ugu xidhan tahay. mid waa loo sheegayo waxaa lagu yidhi dhegtaa lagula foqo, waxaa lagu yidhi kamarad baa ku daawanaysaa, kamarad ayaa ku daawanaysaa, is ilaali. ninka boqorkaabaa amray for example u sheeg midna loomaba sheegin for example. kii loo sheegay sababta kaliya uu wanaag iyo samafal u sameeyaa waa isaga oo og, because wuxuu og yahay in la daawanayo, in taajirkii ama kiinkii daawanayo ayuu og yahay. kii kale laakiin ma ogaa, laakiin naturally ma oga in la daawanayo, laakiin muxuu sameeyaa? as a human being he does the right thing. wixii looga baahnaa dadka bini'aadankaas siduu isaguba jecel yahay in loola dhaqmo ula dhaqmaa. wixii dhibaato haysato maaragtay dadka wuu caawiyaa. ciddii u baahan maaragtay in loo tabaruco wuu tabarucaa. wixii wax ma xado, wax ma gardaraysto, wax ma dhibo, because wuxuu og yahay isaga qudhiisu inaanu jeclayn in intaa lagu sameeyo. kamaba fikirayo cid baa ku daawanaysa iyo whatever. laakiin damiirkiisa ayaa siiyey in aanu jeclayn in la dhibaateeyo isaga, inaanu jeclayn in la xado isaga, inaanu jeclayn in la xaqiro isaga, inaanu jeclayn in la dafiro isaga. dabadeetana damiirkiisa wuxuu siiyey in uu isagu noqdo qofka ugu horeeya intaa sameeya, si isagana haddii eebba idanka leeyahay maaragtay uu isaguna intaa u helo. it's called karma. labadaa ninkaa taajirka ah for example, ilaahay ba intaynaan gaadhin, ninkaa taajirka ah ee labadaa qof ilaashanaya, ninkaasi hadduu yahay nin ama taajira ama king ah oo dee maaragtay mufaker ah oo qof dee cajiiba wax kala garanayo heerkaa ku gaadhay maaragtay kalsooni iyo dee maaragtay waxqabad iyo caqli iyo wax walba. labadaa nin ee midna mar walba uu cirka eegayo, kamaradaha iska ilaalinayo, ee marka kaliya asxaanka samaynayaa ay tahay
أنا أصحان كهلا محن كهلا يا محي يجترا محن كهلا يا محي يجترا يا مدنا أنا وحبابة أوجين لكن كاس ووجي هاي إلا داونا يصير كلية أو لينك وصعدا أو ستريت وصعدا وحويان وحوجي هاي إلا داونا يا واللي بس عصيت هاي مرر بدن أيو خيامه إيو توجنيمه إيو حياب أنا هاي نسميه أي سمينا because وحو مرول بإسليه وأنت أسوق كمرة دكاسي يرتشدا كي كلا لكن مرول با he or she they're doing the right thing yeah samafal they're just being themselves naftooda unto isma badhi bayaanba waa clear the guidance the road ahead is clear waa toos wixii aan anigu inta naftayda u ogolahay ee aniguba aan deserve kareystay ee qof kasta u ogolahay qofna hadaan ku xadgudbin ana laygu xadgudbaayo qofna hadaan xadin ana lay xadi maayo cidna hadaan dhibin ana lay dhibi maayo wixii qalad iyo xumaanay leeyla yimaadana sharcigan la tiigsanaya who do you think are you king kaas that king ya ama taajirkaasi keebay kula tahay labada qof inuu ixtiraamayo inuu jeclaanayo inuu kee hagaagsan labada qof midna wuxuu u samaynayaa aad credit ku heshid wuxuu samaynayaa walina khiyaama ku dhex jirta ya midna wax walba because the fitra guides him as a human being كيف يعني what I would say is kaas u samaynaya inaan cidina daawanayn why do I need a camera maxaan camera ugu baahanay inaan waxadin si aan wuxuu xadin why do you need a camera adu ma qoldeebaad qolada iskeegaysa ilaahay eegaya ee wuxuu sameynayay ilaahay eegay darteed soo waxa tahay qolada maaragtay qolada kale keebata adu fahmin marka adu qolada horta suuqa ay cadeys si aan u garana maartay luqadda aan ku isticmaalay kuwa tiri maaragtay ma oga iyagu kamarad in eegso yani ilaahay bad kulli ka wadaay dadkan maan loo sheegin inuu maartay ilaahay jiro bise iyaga diiday in uu iska indha tiray oo maya anu waxaan u dhaqmayaa si inaan jiro noonka xaqad waxaan iyagu diideen teeda kale sheekadaada waxay u sawiraysaa maartay qofkii ilaahay maartay iska indha tiray inuu yahay qof wanaagsan oo maartay khayrkiisa uu ku jiro malaa'ig Allah ku yahay halka kii isagu maartay ilaahay iska eegayo maartay ilaahay oga aad u sawirayso shaydaan marka muxuu ilaahay ku doortay haduu shaydaan yahay kale muxuu ilaahay u doortay iimaanka qalbigiisa ugu soo riday bila aadamnimadiisa nool fitradiisa nool bad ku celcelisay kan kale maxaa fitradiisa dilay mujarrad inuu ogaaday in la eegayo fitradiisa ma dhimatay bila aadamnimadiisa ma dhimatay yani sheekadaadu dhinac bay leexsantay waa suuqyada caalamiga ويسكع عد صح مقطع إناد مارتي دين هذا وح الله علي وح أقوانا عاد الله ليش هذا الدين تقول لذا واحد قرن ليد مرتبط وقصر رئيس مارتي دين الإسلام إن صدق مرتبط وقيسنتو الإسلام والإيمان والإحسان إحسان كو ومرتبط وقصر رئيس مرتبط وقصر رئيس وحويا إن الإلهي أعبدت سيد إنه إن الأركي سوكله واي هذا أذوب أركين إسقى أياكو أركي الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه أذو محد وناق وصميسة بالناشر بالنبر يعني سويت وناق وصميسة وناق كان سمايو حتى وما سمايو بل إلهو جندي وجي إلهو والد كي عذابي إلهو I don't because وحنو سمايا it makes me feel good هدي إلهي سبحان وانكحش وضع بينا إلهي والله إلهي بيقول وانكحش وضع إن إلهي مركع لسحان قف السمايين يبتد فوتات إلهي وانكحش وضع يعني هدي أدمارك إلهي هذا قون الله عن الهي كما تحشوتن إن ذو حوانا قد سمين سو إلهي درتي أدو سميسو إلهي وحكا قدون ما تكحشوتن سوت كد ذا إلهي سوابتو النبي عليه الصلاة والسلام وحين فريين إن إلهي عمل ذا وناكسنا إنه قد وانو وحكا ستوين سمين إن إلهي وحكا رادين وإن إلهي كحساب سن نحتسب الأجر من الله من عند الله إن أجرك حق إلهي كحساب سن أقول لك محل ذا حساب سن أجرك فرق baa u dhaxeeya qof maaragtay naftiisu raali gelinta naftiisa iyo naftayda maxaa maaragtay farxad gelnay maxay ku niyadsantay wuxuu sameynaya iyo qof uu sameynaya maaragtay muxuu ilaahay ku niyadsan iyo ilaahay muxuu ku faraxsay farq baa u dhaxeeya marka martabada soo gaadha maaragtay insha Allah ay dareemi karaysaa in ilaahay dartii wax loo sameeyaa halka ay leegtay halka ay gaarsiisan tahay
tan aad u sawiraysa maaragtay in qofkii ilaahay iska eegayay inuu shaydaan yahay oo khaayin yahay oo maaragtay munaafiq yahay oo maaragtay danaysta uu yahay oo maaragtay wax kasta sifo kasta wuxuu u leeyahay halka kii ilaahay iska indhatiray maaragtay inuu eegayo oo maaragtay aad u sheekayso inuu yahay qof wanaagsan oo fitradiisu nooshahay oo uu kan iyo kan iyo kan iyo kan xaqiiqaduna saa maaha marnaba insha allah xalqada soo socota ayaana insha allah dalalka ugu dilka badan leh iyo dalalka ugu dhibaatada badan leh aan insha allah kusoo bandhigi doonaa iyo sida maaragtay dadka allakoodka ay adduunka si maaragtay dhib u hayaan waxaanay nagu filan hadalkii ilaahay ahaa sharul bariya inay yihiin ilaahay uu ku sheegay inay dadka gaalada ay sharul bariya yihiin adduunkan waxa dul tukubay inay kuwa ugu sharka badan leeyihiin ilaahay hadalkiisana markhaati ku filan intaas ayay xalqadeeni maanta kusoo dhamaatay walaalayaasha daawanaya channelka fadlan la taageero like-ta subscribe-ta share-ta iyo faaladiinaba farxad bayta intaynu mar kale kulmayno salaamu calaykum